Is it him? My name is Muhammad Ali. Muhammad Ali, salam alaikum. Yes. And you? What's your name? My name Mahmoud. Mahmoud, you're from Somalia. And you? What's your name? Mustafa. Mustafa. أيوة. And this. So we come to Norway, a really nice place. The king house is there. And yeah, Near my house. it's his house though. That one, yeah. Yes? Alright, so Oh, you're gonna it's- see yourself. Yes. Alright? Yes. So, bye-bye, man. Cheers. But I just want to add that point with the welfare system, which also affects the whole system in a way. Thank you. Sir, is yours a question? Okay. Just short, please. Sorry. My name is Johan. Thank you very much, sir. I have only one question. It's about Sharaf. Well, Sharaf. Sharaf? Sharaf honor. Honor. Yes, Yeah. honor. Yeah. It's how can we, in a way, what can Sharaf distribute, or how can young Somali people, second generation in Norway,
how can they establish or keep the sense of sharaf? Which means? Well, receiving respect and giving respect. Receiving respect is important in the السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadku isku daysadaan de. هاي ergaas jecla. Ani legendkayga tahay. mahadsanid sharaf Baa weyn. waxaan rabaa imaashada Oslo. Professorkeena qoraageena markii labaad noo imaanayso. Bal hal iyo labo wadankan dadkiisa. wasaad sheegtay walaalo dhowr sanadood ka hor baan mar imi magaaladan Oslo imika waa markii labaad waxaanu isku lugahayn markan qoraaga weyn ee Nuruddin Faarax oo inkastoo isagu ka yimi Cape Town South Africa aniguna aan ka yimi imka Hargeysa socodkan haddana ujeedada safarkaygu isku mid bay ahayd Nuruddin baa halkan wuxuu kula kulmayay dadka reer Norway hadday noqdaan Soomaalida iyo dadka kaleba sidaad ogeed xalay dad isku jira ayuu la kulmay oo Soomaali leh oo Norwegians-ka kale leh caawana Soomaalida gaar u ahayd laba kulan oo aad iyo aad u xiiso leh ayay ahayd aniga Nuruddin saaxiibtinimada ka sokow waa ninaan wada shaqayno buuggiisii ugu horreeyay Crooked Trip ama feer qaloocan baan turjubay muddo aad u dheer saaxiib baan ahayn marka waa ninaan wax badan wadaagno markastana waa ku faraxsanahay in maaragtay aan ku soo laabto magaaladan Oslo iyo wadanka Norway oo dhibaatooyin xoog loo waqtiga hore dadka Soomaalidu ay sheeganayeen maanta dhibaatooyinkaasi aanay jirin ama ay yaraadeen baan oran karaa oo bariga wax aad looga hadli jiro maaragtay aad iyo aad u weynaa dhibaatada caruuraha la qaadanayo imikana sida aan ku warqaatay dhibaatadaasi waa yaraatay su'aasheed ugu dambayso socdaalkaaga dunida barnaamijyada daba socdaaniga maadaama aad nin wareegayo socdaalkaaga wixii kugu yaab badnaa hal xab inay soo qabato inta socodka Soomaaliya kulmaysa والله ولا سفر كستا كان يمكن كان كنت شوقنا هالنقطة ده وحن لياب لحين إن بدن بنا رخاء وحياة فربنا ودي لياب له هذا نقدان سوماليدا بالشدة سوماليدا جودة هذا هذا نقدان تديوجا كلا إلنا ليم مركب مد يلا بقى يصدق ده وحنا ملاينا كواسي برنامجي وبهنية هالحبة كعوض بتعاوح تاع النقطة waxa tarcaaw hadaan qudheeda wax yar ka ilaahdo de sida Soomaalidii ay mawjado kala duwan uga hadlayaan marka kulamadan oo kale la isugu yimaado oo ama ha noqoto xagga luqadda oo af Soomaaliga oo de maaragtay qoloba dhinac u ridayso ama ha noqoto xagga fikirka oo de daadii ay soo galayso oo carruurtii halka ku dhalatay dhaqamo kale maaragtay ay kii Soomaalida aad ugu larayaan marka kulan kanoo koobnaa haddana sida loo kala duwanaaba de la yaab lahayn والله عبد الله هريريو أنيقو جعل إنه إلى يشن ساعة كل سيتاجنا ذو وأنا كهذا دقائق لكن هذانا أوجا دبدن إلو كل كنا دم فردي بنقول دولار ما شاء الله تعالى مركو فصحى أدبكو سلامي كل الدواسر كدونا أفريقيا وأسعتاي إن شاء الله هي عبد الله يا إن تاريخ دالكن عند دبوم markaasa waxay igu soo dhashay sheekada tan ah waxay ahayd in buugaan qorana aan ka sheekeeyo Soomaalida joogideeda halka ay joogto iyo sida la isula safray ama la isu cag la wada qaaday ama la isu diiday ama la kala eed sheegtay Soomaalidu waxay tiraahdaa ilko iyo muxuu ahaa carab bay isugu dhow iyaguna waa isqabtaan waa isqaniinaan ilkahuna waxay qaniinaan muxuu ahaa carabkiina wuu ka
wuu ka argoostaa oo wuu caayaa ku hohaaya sheekadu marka meeshaasay nala gashay iyadoo meeshaa sheekadii nala gashay ayaa waxaa soo baxay markaan bilaabay wax qoridda laba waxoo awal aanan ku fikirayn labada waxoo awal aanan ku fikiraynin waxay kala noqdeen midda u horeysa nin la yidhaahdo Breivik waxaan malaynayaa maadaama dalkan deganaydeen inaad taqaanaan nin la yidhaahdo Breivik nin Breivik la yidhaahdo oo meeshan Utea Islandka yar ku dilay dad badan bugu wuxuu ku saabsan yahay oo gaaban ayaan idiin sheegaya dadkuu dilay waxaa ka mid ahayd gabar Soomaaliya gabar yaroo 18 jir 19 jir ayaa ku jirtay carruurtii iskuulka dhiganaysay oo meesha Utea la geeyey mar haddii Soomaali ay soo gashay anahun guri baa iga galay oo aniga anoo gaajaysan baan weligay Soomaali raadiya gurigii iga galay marka waxay noqotay sheekadii Breivik haddii aad sheegtay sheekada Breivik haddaad sheegtay waa in sheekooyinka novelladu waa in miisaan wax la yidhaahdaa jira la isku miisaamo wixii sheekadii waa la isku miisaamada macnaheeda waxa weeye haddaad tiraahdid waxa kan Norwegianskii baa sameeyey waa inaad tiraahdid sidoo tiraahdid Soomaalidiina waxa kanay sameeyeen waa in la isu miisaamo Soomaalidii wixii samaysay waxay noqotay qolyaha kan la yidhaahdo qolyaha kan isqarxiya oo sheeganaya inay diinta naga xigaan sheeganaya diinta inay naga xigaan sheekadii intaasoo dhan bay la gashay sheekada marka waxaa ku jira asalkeeda siday u bilaabanayso waxaa weeye nin Soomaaliya oo ahaan jiray diplomat safiir buu ahaan jiray Jarmal iyo Italy iyo meelahaasuu safiir ka ahaa niman family Norwegian ayay asxaab si fiican isu barteen intaanu Soomaaliya intaanay burburin ka hor dadkii bay marka isku soo xiriireen oo dalkan u yimi dalkan ayuu yimi inta Soomaalida laaji'inta ah aanay iman ka hor sanad ka hor ama laba sano ka hor wixii baa la isku soo toosinayaa moogta sheeka xariir baa la wadaa sheekada waa in aad isku soo xirxirtid ninkii oo magaciisa la yidhaahdo Mugdi aad buu u madow yahay oo Mugdi baa la yidhaahdo yaa xaaskiisa oo gacalo la yidhaahdo ayaa waxay dhaleen wiil dhalinyaro ah wiil dhalinyaro ahoo markii horena Jarmal ku soo koray markii dambana Italy tegay afafkaasoo dhanna yaqaan cilmigiisuna wanaagsan yahay ayaa waxay keeneen Norway Oslo keeneen wiilkii oo magaciisa la yidhaahdo dhaqane ayaa wuxuu baranayaa dad u war xumeeyey oo yidhi haddaad doonaysid inaad jannada geshid dariiq gaaban baa jira ood mari kartid dariiqa gaaban uu ku geynaya jannada waxaa weeye inaad gaala dishid dariiqa u gaaban ood janno ku geli karto waa sida laga dhaadhacsiiyey waxaa weeye inaad maxay ahayd dishid gaalo xamar buu tegi marka shabaab buu ku beera shabaab buu ku beera odaygii Mugdi iyo gacalo xaaskiisii way qaybsameen gacalo waxay leedahay wiilaan dhalay
ma dayrin karo xataa haddii uu dad dilayo meel isku qarxinayo ya wiil aan dhalay waa wiil aan dhalay oo ma dayrin karo mugdi wuxuu yidhi wiil aan dhalay oo ku kacaya waxa kan aad sheegaysid oo xamar isku qarxiyey ya oo jannada meel gaaban u soo maraya isagoonan shaqaysan naar mooye meel kale laguma oga mana doonayo inaan shaqo ku yeesho mana doonayo inaan shaqo ku yeesho dhaqane intuu xamar joogay aanu isqarxin gabar buu helayoo guursaday gabadha waxaa la yidhahdaa weliya mugdi iyo gacalo waxay isku qabsanayaan gabadha tan uu ninkii ka dhintay markuu isqarxiyey dhaqane markuu isqarxiyey kadib gabadhan uu ka dhintay ninka tolow maxaanu ku samaynaa haddii carruur bay wada tahay wiiliyo gabar bay leedahay maxaanu ku samaynaa gacalo waxay leedahay waa ilaa iyo wa ilaa ya calaya talaaq wax la yidhahdaa jira carabiga moogta waxa weeye ama waad mugdiyo ama waad ifuri ama waxaad keeni weliya iyo carruurtii weliye iyo carruurtii waxaa la keenayaa marka Oslo maxaanu haynaa marka laba sheeko oo wada socota weeye midna waxaa weeye Breivik ya oo dad badan aanan waxba galabsan 76 carruura oo secondaryga iskuullada ku jira ayuu dilay waa kii ninkii xabadihii maaragtay ku furay iyo weliya oo doonaysa inay iyada sidii ninkeedii isu qarxiyey ya shaydaan iska naarah oo iyadana halka joogta marka sheekada sababta aan u danaynayo sheekadaasoo kale waxaa weeye ya midda u horeysa Breivik wuxuu neceb yahay dadka ka yimaada dibadda Norway wixii dibad ruux ka yimi ama laajic ha ahaado ama shaqo raadis ha ahaado groupka neceb weeye groupka neceb weeye weliyo iyo dhaqane iyo groupkaasna waxaa weeye dad ku dhaartay iyaga mar alaaliya markay u maleeyaan ruuxii inuusan islaan noocooda ah aanu ahayn ya inay iyagana dilaan marka sheekadu haddee waa sii badnaanaysaa waxay ku dhammaan doontaa in maxay ahayd la ogaado gabadhii sidii ay u dhimatay iyadoo yar nolosheedii gabadha hooyadeed baa nool oo ku nool maxay ahayd waxay ku nooshahay Oslo interview baan ka qaaday waan la kulmay sheekadeedii baan ogaaday Breivik wixii laga qoray oo dhan baan akhriyey dhaqane iyo muxuu ahaa weliyana haddee sheekadooda oo ka horhayaayo xamar baan tegayo research baan ka sameeyey intaasoo dhan waxaan idinku sheegayaa nin Soomaaliya ama gabar Soomaaliyada oo jidka maraysa markii la arko ya waxaa loo haystaa inuu yahay cadow sababta cadowga loogu haysto waa laba sabab midda horeysa waxaa weeye dad madmadow baa tihiin midda labaad waxaa weeye dad islaamaa tihiin labadaaba dadka
Breivik ninkan sheegayo iyo groupkiisa oo right wing maaragtay kuwa kan midigta ku xiran labaduba ma jecla intaasoo dhan maxaan idinku sheegayaa intaasoo dhan waxaan u sheegayaa idinka meelaan lagaa jeclayn haddaad joogtid sidaad u dhaqmaysid waa inay ka duwanaato meel lagaa jecel yahay markaad tagtid ya markaad idinka timaadeen badankiin daahir oo halkaa fadhiyo oo aan arkayo hadda maalan wuxuu yimi 1987 87 ma jirin shabaab 87 ma jirin shabaab 87 1987 ya siyaad barraa weli joogay dalka laaji aan markaa ka imanayay Soomaaliya oo imanayay dalkan sheekaduu sheegayay laajinimadiisa iyo dadkiina badan markaad timaadeen dalka laajinimada sheekada aad sheegayseen waa kala duwan yihiin ya ilaa 92gii 93gii tiradiina aad bay u yarayd soma tiradiinu aad bay u yarayd waxaan imi 94 95 dalka Soomaalida loogu nabcaa dadka ku nool maxay ahayd Oslo sababtuna waxay ahayd markaa dadka badankood af Norwegiankiina ma aanay baran ceedna way ku noolaayeen marka idinka haddaydan shaqo haysanin markaana 91 92 93 waqtiyadaas ilaa 94kii markaan imi u horreysay taariikhda Norwegianska ka tegay dalkan oo u gudbay maxay ahayd Yurub iyo Maraykan iyo ka raadsaday Norwegiankii gaajaysnaa 1855 iyo Soomaalida halka timi 1991 up to 1995 ayaa isku mid ah isu soo dhow Norwegiankii halka ka cararay markay tageen Maraykanka iyo Canada waxaa la siiyey dhul laga kiciyey dad North American Indians kuwa kan Red Indians kilo la dilay massacre baa lagu sameeyey dadkii waa la dilay iyagii baa waxaa la siiyey dhulkii oo raqiisa badankood dadka waxay ahaayeen kalluumato ayay ahaayeen laakiin meeshay tageen North Dakota iyo South Dakota ma jirin wax badan webiga jirana lagama heli karin kalluun la dabto maxay noqdeen markaa waxay noqdeen inay beeraha qotaan yani waxa weeye marka ruuxu uu migration galayo hadduu ruuxu meel ka soo safro uu meel yimaado waa in uu shaqo samaysto ya waa in maxay ahayd uu shaqo samaysto marka hadda waxaan ku faraxsanahay in Soomaali badan oo hadda shaqaysata xalay waxaan sheegayay اليد العليا خير من اليد السفلى يا dadkii oonan maxay ahayd aanan tuugsan liibaan maxamed liibaan maxamed
ليبان صح ليبان صالح سوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليبان أنا كل ده ليبان دردر كواقعنا صح هم قاعد بدنا ها سكول قال ليبان شعيل بلا يورجري ما شاء الله نيوم برضو البرنامج كنا نور الدين صالح صح iyo buugagtu qoray iyo aqoon fikrad aruursi bal marka ugu horeyso barnaamijkan wuxuu yahay waxa uu tala gasheen sidoo uu dhacay qaabka u soo diyaariseen adoo wax yar noo taabanayo iyo gunaanadka ku socda بسم الله الرحمن الرحيم horta waa bulshada Soomaaliyeed markasta ku nooshay dunida dacaladeeda aad baan u salaamayaa bulshada media saxaafadana adigana aad baan ku salaamayaa barnaamijkan iyo sidoo ku yimaado anaga waxaan hormuud u ahay for the last 30 years inaan dadkeena advocacy u noqdo so my background kayga dadku ugu horeeyay community ka furay baan ahay Ingiriiska dhowr sano oo la shaqeynayay madax badan oo dalka Ingiriiska maartay maamusho wala soo kulmay muxuu ahaay prime minister wala soo kulmay campaign badan oo ka soo qayb galnay waxaan aad ugu farxay horta maanta halkaan ayaan kala kulmay barnaamijka wuxuu ku yimid sidiisaba waxaan la shaqeeyaa hay'adaha dhaqanka iyo hidaha taasoo meelo badan isugu jirta hadda qof dumar haday waxa ka hadlaysay su'aalaha weydiinaysay gabadh aan magaceeda ilaaway waxay tiri ma garanaysaa inaan dhaqankeeni adkeeni dhaqankeeni laftiisa la isku haystaa dhaqankeena wuxuu leeyahay literature oo academic aqoonta iyo xirfadda writing-ka wuxuu leeyahay maartay hal abuurka gabayaaga iyo ma garanaysaa riwaayadaha nimanka sameeya nimanka riwaayadaha heesaa alifa oo hal abuurigana la yiraahdo iyo wuxuu leeyahay heesaa iyo qolo muusiga tunta iyo qolo folklore ciyaarta oo dance garaysa ciyaaraha hidaha dhaqanka iyo waxyaalaha kala duwan samaysa marka wixii way isku wada jiraan wixii waxay u baahan in si gooniya la isula koriyo nuuruddin waxaan ku jeclahay aragtidiisa dheer ee ah inuu difaacayo dhaqankeena laakiin dadku ma oga shalay markuu khudbadaha Ingiriisiga lagu wareysanayay oo interview laga qaadayo oo la kulmaayay journalistayaasha iyo dadka aan Soomaaliga ahayn ajnabiga oo luqadda Ingiriis ku hadlaya you can imagine uu difaacay Soomaalinimada hadalkiisa waxa kamid ahaa gabadha wareysanaysa markay ku tiriyeen dadka maartay hindida waa cusriyeen ma garanaysaa Soomaalida dadka madow ay nacib yihiin maartay dadka hindidu iyo maartay cusriyeen hindi marka joogto wax ku baranaysa maxaad kala kulantay ankaas siro politely aad qurux badan u difaacay wuxuu dhageyso anaga Soomaali hadaan nahay cusrinimada nama kartaba sababta waxaan ku soo kornay brother inshallah one minute waxaan ku soo kornay buu yiri hooyada kugu soo korisay adigoo muxuu the best person human being in tahay adduunka dad aad sula qab weyn baan nahay marka anagu waan la yaabna qofna cusreynay waxa markaan aragno waxa qofka waxba ka qaldan fahamta caadi ma marka qofka Soomaaliya lama cusreyn karo hoos looma dhigo dad aad isku qab weyn ha soo hoos looma dhigo karo marka cusrimada la sheegay ma bana kartaa anaga exactly that was a fantastic point moogta wallahi classical point plus many other things oo Soomaaliya ku difaacay area-da ku feel garoobay xogaa aniga my opinion kayga oo waxa weeyaan area-da markii gabadha yar ay weydiisay maartay wiilasha iyo hablaha waxa more opportunity badan oo dadaala hablaha oo maartay graduation ka jaamacada inshallah dabadeedna taas nuuruddin wuxuu kaga jawaabay ma garanaysaa dumarka in aabihii meesha ka baxay ma garanaysaa habluhu ay more opportunity ka aysan inamada ka caqli badan yihiin aniga waxaan oran karaa in my opinion kayga because inamada iyo aabayaasha wax ku socda pressure aad u weyn dadkan society-ga aan soo dhexgalan cusub kama baqaan haweenka iyo carruurta waxay ka baqaan ragga so therefore inanka yaraa markuu weynaado qaan gaadha waxa loo haystaa inay madow nin and then waxay keenaysaa marka taa resentment iyo opportunities oo yar aabihiina markuu sidoo maartay nuuruddin laftiisu sheegay gabdhaha kamid ah ay sheegtay oo I like aad maartay aad aan ugu helay maartay fikirkeeda waxa weeyaan aabaha isaga maartay breadwinner-ka ahaa provide garan jiray guriga cuntada iyo wax walba reerka biilka bixin jiray halkan roolkiisa markuu isbedelay state ku bixinayo asaga rool buu waayay uu ka ciyaaro respect buu lumiyay marka even gurigiisa dhexdiisa ilaa naagtiisii marka xaaskiisii aan iraahday af Soomaali kala wanaagsan raali hada marka ka bacdi waxa timaday inuu isolation galay da uu kula qabsado waddankiina ma joogo waana ninka qabka weyn ee Soomaalinimada u dhashay dan tii waxay keentay maartay inuu isku mashquuliyo maqaayad iyo cafe iyo maartay fadhi ku dir badan iyo waxyaalo kale but at the same time rag badan oo waajibkii gutay waalnimadii way jiraan oo lagu jiraan carruur badan soo saaray taasan ka lahaa
haddaan usoo gun noqdo barnaamijkan iyo sababa ku yimaado annaga waxaan difaacnaa xagga dhaqanka Soomaaliya waxaan rabnaa inaan dhaqankii ka soo noolno dhaqankii hal abuurkii qoraaga iyo maaragtay mutacalimiinta waxay ka mid yihiin qayb ka mid ah dhaqankeenii dadkeena lagu soo celiyo dadku dhageystaan baan jeclayn maaragtay aan u keeno ummadda Soomaaliyeed ay wax ka maqli karaan aragtida fogle Nuurdiin one of those buu ka mid yahay aragtida fogle Soomaalinimada inuu rabo inuu kusoo dabaalo nabad iyo walaaltinimo iyo jacayl difaacayna habeenay maalin waxaa sidaas oo kale ay dad badan qalad ka fahmaan xagga diinta waa nin muslimaan ay naga jecel diinta somehow argumentkiisa waan ka helaa because wuxuu rabaa inuu isqabadsiiyo Soomaalinimadii dhaqankeedii iyo diinteedii waan isleeyihiin waayo anagu dad kumanaan sano muslim baan nahay laakiin inanteena weligeed boqor dhacay xidhan jirtay guntiina xidhan jirtay ana still diintan hadda kala dagaalamaysaa oo difaacaysaa oo ku dhimanaysaa fahamtay waa dad kaliya maarta hataa waxaan xustaa Soomaaliya gabadhii reer baadiyaha ahayd oo u yimid UN ninkii haystay yiri salaan ayuu dhahay balka war abaaraa jiray wax gacanta u soo taagay taa rayga lax fahamtay yaa ku salaam maaye waxa haystay heer mindkeeda hadduu taabto inaan maarta wax aan nadiif ahayn ay taabteen taas waa extreme surnimo laakiin it's her capacity and understanding oo waxa la qabta Soomaalida qabtaan aan leenahay marka waxaan la shaqeeyaa ururkan Horizon meel festival Khalid iyo teamka Ari oo xagga qoraalka isugu qaabilsan iyo Ashley iyo xagga fanka waxa isugu qaabilsan waxaan marka aan ku heshiinaa qoraagan aan keeno soo casuuno dadka Soomaalida aan qulubtooda iyo waxooda aan maartay kala tashano iyo sida u arkaan Soomaalinimada taas ayaa keentay waa qayb ka mid ah dhaqankeenii bay ka mid tahay waxaan ku difaacnaa dhaqankeenii waxaan rabnaa Soomaaliya inaan kusoo dabaalno kusoo celino dad oral society way dadka oral society ana qulubtooda waxa kusoo jeedin kartaa dhowr waxyaalood waa la haditaal la hadlaysid iimaanaysa oo kaleeto halabuurkaasi wuxuu keenayaa marka dadkeeni maadaama oral society oo dhagaha wax ka maqlaan waxaan kusoo isku taxalujinaa inaan funky heesoodii soo xasuusino heesi abwaanadooda ay jecel qoreen inaan gabayadoodii soo xasuusino waxaan adeegsanaa oo kaleeto sida qorayaasha Nuurdiin ka mid yahay magarsa dad kale oo xataa Soomaali waxa jira xataa ajnabi wax ka qoro dhaqankiina wax ka yaqaana marka waxyaalahaas aan sukeena waa political point of view waa cultural point of view haddii Soomaali aan ku turjumo waxa weyn macnaheedu qiimeynta dhaqankeeni iyo qiimeynta siyaasadeena iyo waxyaalaha maartay caqabada inagu haya inaan ka wada hadlo muhiim weeyaan marka taas waxay ka mid tahay maartay philosophy-gu aaminsan Nuurdiin waxa weeyaan mid oranaya warniyahow inteenan khamiiskan iyo waxaan xidhan iyo dharkan iyo magaranaysaa waxaan shabaabkan waxaan jilaabkan waa weyn waxaan dad dhaqan leh baan hayno still muslimna brown ku dhaqankoodii kumanaan sano yeenan ka tagin dhaqankeena oo dhaqan kale ayna soo waaradeen inagoo moodayna inaan maartay islaamnimada ay tahay wan nooc kaliya caalam badan oo muslima jira weligeena kumanaan aweeyashan ficilna muslim bay ahaayeen xoolo dhaqatana way ahaayeen beeraleyna way ahaayeen still they proud bay ahaayeen fahmaysaa hablaha waa la kala garan jiray markay inaan tahay iyo marka la qabo xaaska timaha u dadnaan maartay u xidhnaan jiray hablaha inaan la qabinna waxa weeyaan timaha u dadnaan jiray marka waa heesi muxuu ahaay abwaanteena hor u tiriyeen waxaas lagu gartaa Soomaaliyeed yaa wiil gaaban iyo gabadh adigu something like that song ba qiimo weyn u sameysay Nuurdiin I think kulligan ba aynu reference point ka qaadan karnaa waa waxa lagu gartay Soomaali lagu yaqaan weeyaan marka anoo ka soo gabaynay hadalka in fact barnaamijkan waxaan ku keenno waxa ka mid ah qayb aan dadka wacyigelinta dadka bulshada Soomaaliyeed aan ku wacyigelin qaasatan Yurub waxaan rabaa inaan hal wax kula sheegaray maanta aad iga farxiyay for the first time in Norway aan ku arkay wuxuu ahaa markay nacsuntay gabadh xildhibaan oo Soomaaliyeed oo yar hadalka baarlamaanka Norway aan tagnay sawir ka qaadanay aan ku soo dir doono insha Allah a pool of dad cadaan oo Norwegian ay dhex fadhido iyadoo MP ah oo gabadha kaliya madow ka ah meeshaas antina ay Soomaaliyeed noqotay it shows you xididadeeni wadankan inay galeen whatever difficulty aan la kulanay hadana xididadeeni rootskeena inay ku jiraan waxaan jeclahay more inaan encourage gareeyo arrimahaas oo maartay aan ka shaqeyno insha Allah hadii ilaahay kooxan keena durdur baan keena fankan keena kaman baan keena cud baan keena xuduud alla nuxsan keenay ilaa 2004 kii this is the kind of things aan doonay dadka inaan ku hanuuninta dadka barnaamijkaas weeyaan Nuurdiin qaybtaas ka mid yahay qorayaasha iyo ku kala badan soo socda so next year ma qorshihiisa maxaa noogu jira duula caafimaad nagu gaarsiiyo horta imika festivaalo badan baan ka qayb galnaa oo waxyaalaha Soomaaliya lagu amaano waa maartay fanka dhaqanka iyo waxyaalahaas
we shown another side of flip of the coin bay dhahdaan marka maartay baasha dhinac kale u gadis waxyaala aan Soomaalida looga baran oo stereotype baan ugu socda iyo negative markaan laakiin stage taagna caalamiya oo ay ka heesaan kooxaheena fanaanteena fankeena muujinayo danskeena dhaqankeena iyo hal abuurkeena oo loo turjumo waliba dadka indhaha soo baxa dadkan ma noocan ma leeyihiin because waxaan ugu socda dagaal xun oo ah Soomaalida in dhaqanka laga bedelo in laga dhacsiyo caalamka in dad horobala oo dagaal iyo dhiig iyo gaajo uun maartay yaqaan laakiin maadaama su'aashana ugu dhalatay maadaama nin fanka ku jiro dhaqankiina u dagaalamaya de dhaqankii hore iyo fankii hore wuxuu ahaa fan quality sugan quality leh hadda waxaa moodaa inuu fankii Soomaaliyeed isbedelay oo more hadda Somali rapper ay soo baxeen oo de heesiba dhanba hadda ay isku bedeleen inuu waxyaalaha Soomaaliga xitaa afka aan qabanin marka adi ahaan see u aragtaa fanka hadda jiro iyo fankii hore wal fanka hadda jiro marar badan baan ka hadlay waxay nagu socday 30 sano oo dawladdeena burbur tahay waxaa naga baxay skilled musicians waxa la yiraahdo khibrad u leh aalada kala duwan ee music loo tumo guitar shareero violin battery drum waxa la yiraahdo wixii naga baxay may xoogaygan waxaan soo geeyay inaan musicians ka soo noolay caalamkan kala soconaa waxyaala kale raabka maalin cusub maalin rock roll baa cusub soo weligan waan ka gadin jirnay ilaa xamar ilaa filmaantii heeseen hadda dhageysto banaadiriga moor waxay qabadsiinaa hindiya waxaalaas kaleeto bariga hore fankeenu cusbaa magaranayay Cabdilaahi Qarshi Allah naxariista xagga waqooyiga xataa ku sablamay waxaa jirtay balwa wax la yiraahdo balwa heesa balwa socday sharks aan loo goyn jiray guruusiyada oo Suudaan laga soo import gareeyay qaar camarta laga soo import gareeyay marka we always cocktail what makes Somali unique musicooda waxa weeyaan hal abuurkooda erayadooda iyo the ability inay wax isku dardaraan oo for example imka durduro kala loogu jecel yahay fanka in IT-da iyo waxaas oo dhan oo hadda aan ku wareegna ku tuurna magaceeda iyadoo ay nagu jiraan fanaantii durdur kamid ahaa qaar badan kamid ah it's because the way ay u tumayaan musiga waxaan aad uga soo horjeedaa versionka computer lagu sameeyay qof aan ability fanaan lahayn intuu computer loo dhiibo microphone loo dhiibo leeyahay iska and then hadhowto waa laga dhigo and then hadhowto markaan israado qofka waa la jeclaaday koox keen fanaan music tuma uu la qabsan kari waayo rhythmkii beatkii marka waxyaalahan kharibay 30 sano ugu dambeeyay but still rap waa important because caalamkii generation yar dhanba ku shaqeeya waxaan rabnaa marka wixii aan sameeyay hadda waxaan dareemay lately in Afrikaanka sidiisaba oo lumiyay ability live music iyo kooxaha ay ku soo noqdeen imika waxa ka rap musicianski oo istaba keenay drum iyo guitar iyo backstage bass u daba taagan yahay whereas before I had to CD yar iyo laba ajo baa maartay laga siiyo so people are waking up xifradan laga dilay maartay ay naga dileen dadkan musical lacagta galiya industry kan waaweyn the maartay label record labels ka xasuudan because waxa la encourage gareeyay the wrong music for the African culture in my opinion waxa la encourage gareeyay you mother this you mother that I shoot you and that which is the wrong way instead of having those Mali music kooxani rock and roll ka waxay tumi jireen culture in Sudan so this is the thing Soomaalidu soo galay lugteeda dhex qabsay inay ku jirtaa muddo heesaha hadda socdo system waqtiga la socota waa waqti everything wuxuu leeyahay waqti uu leeyahay ma tali kartaa taas Sudan Soomaaliya way ma tali kartaa in a sense iyadoo oo polite laga dhigayo erayada ma dadku dhan si oo bil gareen la carruur ba dhigaysan heesaan la hagaajiyay every generation was summer every word was summer waxaan marin laakiin inaga waxa ka duwanay 30 sano xogaa waa nagu daalay dagaalka ruuxda naga dhigay waxaan waxay institutional maartay bay ayaa support gareyn jiray de hay'adaha wasaaradaha iyo waxaas oo dhan waxay dad dawlad ku noolaa tiiba meesha ka baxday so I have struggle inaan durdur nooleeyo because dadkeen waxay barteen handouts inaan la tartamino competition ay maartay ka gaabiyaan oo maartay wax walba free baa lagu siiyay markii la mid ka sii dartay that waxay abuuraysaa